دولة البؤدون كبدا waxay leedahay xabsiyo aad u waaweyn waxayna xaliyaan xabsiyadaasi dhibaatooyin ka dhaxdhaco bulshadaasi marka laga soo qaado dalkeena Soomaaliya wuxuu leeyahay xabsiyo aad u waaweyn haddana ah kuwa aad caan u ah xabsiyada dalka Soomaaliya waxa ka mid ah gaar ahaan magaalada Muqdisho xabsiga dhexe waxaana ku jiro maxaabiis aad u fara badan kuwaas oo ay galeen dambiyo kala duwan xukunno badan ay ku dhaceen qofka muwaadinka ah markuu dambi galo xabsiga la geeyo wuxuu mudan yahay in la daryeelo lagana taxadaro naftiisa dowladda barasamaadka ee Maxamed Siyaad Barre aabaha ka ah ayaa waxay ahayd markii maxaabiista xirxiraan in ay sameeyaan maxaabiista u sameeyaan waxbarasho caafimaad baaris iyo wax kasto waxaana ahaayeen maxaabiista qaarkood kuwa ka soo baxay ayagoo ah kuwa aqoon leh haatana waxay ka mid yihiin macallimiinta ugu caansan dalka Soomaaliya balse haata waxa laga deerinayaa dhibaatada aad u baahan oo haysato umada ku jirto xabsiga dhexe qolkii ayaa waxa loogu talagalay 60 qof oo dad ah haatana waxa ku jiraan 300 iyo wax la jiro kuwaasoo helin nasiino iyo hurdo xitaa mararka qaar waxa laga yaabaa inay naqaska ku dhago ay neefsi waayaan wax kastaba ha ahaatee waxay looga dowladda Soomaaliya حقوقه وكل قفكم موادلك هو حرن مركز الجرة وحراريها جود قرن كصوماليا. قال يا لو حبسية إنه وحكي جرى الظروف عقل قفك السليم كابن آدم كأوسن حميل كريم. ويبوح دافين ويدوسين عافماد مجرو بيمعان مجرو هو مجرتو مسقولا مهيستان ما لا أي إلهي كبريان وكل عبادستان ما هيستان أنا وحال أركتين ما أنت وادو جيدان حرية يقيمها يشرفك عن قنولنا حقا لان دنبي إلههم من نقضان كو عسلاء هذا لقد واجهني لكن حقوق بيليهم بني آدم نمو حبسي قدحاء مقدشو iyo xabsiga baybado waa labada xabsi intaan mas'uuliyadan hayay aan tagay indhahayga saaray dadka meesha ku xirxiran waana loo ciqaabayaa dhammaanteen balala daawada xiriiraha qaranka Soomaaliyeed dareenka ka muuqdo xitaa indhihiisa waxaad ka arkaysaa ilmo ay ka qoonayaan waxaad ogaataan dad Soomaaliyeed islaam ah ayaa habeenkii u dhinta siday u taagan yihiin oo meel ay seexdaan waaya qof bini aadana oo 24 saacadood 2 saacadood oo kamid ah ama 3 saacadood oo kamid ah jiif hela inta kalena ku xukuman inuu taagnaado ka warrama xataa fadhi ma uu helayo meel u fariisto qolka loogu talagalay in 10 qof lagu xiro 9 qof baa ku xiran مسقول ماله هوده waxay ka raadiyaan dariishadahay fuulaan markaasay neef raadiyaan maxaa yeelay waxa neefta ugu filan waxa qaata yaani meel 10 qof loogu talagalay 100 qof ku xiran tahay oxygen-kiisa sidee buu noqonayaa waa wada carbon hydrate waxa ay isticmaalayaan dowladda Soomaaliya haday ku sii jeedeen siyaasado iyo waxyaabo kale oo badan haata waxa looga baahan yahay inay ulgooriya ku fiiriyaan umada ku dhibaataysan xabsiga Soomaaliya kuna dandareysan marka aragtida caloosha ay ku xanuunayso warmawaana aan ku leeyahay isu naxariista war qofkani waa dambi un bogalay waxa laga yaabaa dambiga loo haysta xataa tuhun inay tahay oo shan wali ku cadaanin dambi naag baajan naarta waxay ku gashay mukulaal ay xabistay naagna janno waxay ku gashay zaaniyad ah ay waraabisay war meeshaas ummadda Soomaaliyeed islaamkeeda ku baabay waxaan rabaa midka codsanaya jamaacada daatiyiin nooc kasta oo culimo ay leedahay waan la soo hadlay حمر بانشير وقفتي منيابلس بانشير وقفتي
london baan shir ugu qabtay wax iga hoos qaada waan waaye amri xaaji macaale